inta badan waxaynu u haysanaa in ragga dunida uga halista badan yihiin sida qaar u muuqda qaab qiyaali ah sidaynu ku aragna filimada, laakiin xaqiiqdu waxay tahay in ayagoo ay yihiin qaar aan lahayn qaab qiyaali ah ama jiliyaasha lagala kulma markay ku jiraan doorkooda jilliinka. iyagu toodu waa dhab, wayna ka jiraan dhammaan dunida. dambiilayaashan halista ahi intooda badan waxaa lala xidhiidhiyaa ururo ka jira dalka Talyaaniga. dambiilayaasha halista ahi dunidu waxay ku leeyihiin taariikh dheer, iyagu waa kuwa dunidu ku leh saameyn weyn. haddaba halkan waxaan idinku haynaa 10 dambiile ee ugu halisasan dunida. haddaba kaalinta 10aad waxaa ku jira dambiilaha weyn ee Gio Gallo. ninkani waa dambiile ka mid ah dambiilayaasha ka jira dalka Talyaaniga. wuxuu la shaqayn jiray koox dambiilayaal oo caan ah oo la odhan jiray Baro Fafi oo ka jira magaalada New York. in badan oo ka mid ah falalkiisii xumaa awgeed ninkan waxaa loogu magac daray rabshoolihii Joe, maxaa yeelay dadka wuxuu u dili jiray bilaa sabab la'aan, sidoo kalena wuxuu ahaa rabshoolo weyn. laakiin isagoo iska dhigayay gaangistarada kii u sitay, wuxuu sameeyey maalin go'aan xun markuu isku dayay shirqool ka dhan ah gaabihiisa oo ahaa madaxa kooxda dambiilayaasha ee Barovesi oo ahaa Joseph Barovesi. ugu dambeyntii isagii waa la soo eedeeyay waxaana lagu xukumay 10 sano xirig ah. kaalinta 9aad waxaa ku jira Johann Scalise. isagu waa madhar ku caanbaxay mishinkii loogu magac bixiyay suuqii maalinta jacaylka, halkaas oo 7 isaga uu ka mid yahay ku soo qaadeen weerar wuxuushnimo oo qorshaysan goob ay ka dhacaysay xafladda xuska maalinta jacaylka. lagar ogayaashan waxay ahaayeen kuwo gaashaaman oo xidhnaa dilays isku wada mid ah, kaasoo ah sida lagu yaqaano dambiilayaasha caalamiga ah. Johann Scalise wuxuu ku ahaa dhacdadan qayb, wuxuuna ka soo dhex muuqday isagoo sita ookiyaalo madow. isaga wuxuu ahaa mid ganacsigiisa dil ku baahay ilaa 1950kii. sidoo kale wuxuu la shaqayn jiray koox la oran jiray Al Capone. wuxuu cadaystay dilkan wuxuushnimada ah isagoo jira 14 sano. weeraradiisan joogtada ah wuxuu sii watay ilaa uu ka gala xabsi.